ክቡራንና ክቡራት ኢትዮጵያውያን በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ጎልቶ ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo xaaladda dalku ku sugan yahay warbaahinta dalka Itoobiya shacabka fariin uga tabiyay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan. haddii aynu soo qaadano arrinta ugu xasaasisan ee arrinta ra'iisul wasaaruhu uu shirkan jaraa'id u qabtay ay kow ka ahayd sida aad ka warhaysaanba xisbiga deegaanka Tigreega Itoobiya ka arrimiya ee TPLF ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in deegaan ahaan ay qabsan doonaan doorasho guud iyaga u gaar ah dalka intiisa kalena aan laga qabanayn doorasho. gudida fulinta xisbiga TLF ee deegaanka Tigreega oo shir 3 maalmood uga socday magaalada Maqalla ee caasimadda maamulkaasi ayaa laga soo saaray amaro maamulka deegaanka ku amraya in la guda galo diyaar garowga iyo qabanqaabada uu deegaanku doorashadiisa ku qabsan lahaa. haddaba arrintaas markii ay sidaasi u dhacday ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu maanta shir jaraa'id ku qabtay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa uuna kaga hadlayo arrimaha iyo kuwo kale oo xasaasi ah. haddaba qodobkeenan aynu maanta ku soo qaadanayno oo aynu ku eegayno ayaa waxa uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlay qodobkan la xiriira in deegaanka ismaamulka Tigreegu uu doorasho ka madax bannaan dowladda dhexe oo guud qabsanayo. haddaba waxaa maanta warbaahinta caasimadda dalka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxa uuna u sheegay shacabkiisa inay dowladdu qaadayso tallaabo kasta oo kaga hortagayso kuna xakameynayso dhaqdhaqaaqyada dastuurka dalka baarmarsan. Abiy oo shacabka la hadlaya ayaa waxa uu yidhi doorashada guud waa xuquuqda shacabka Itoobiya iyo masiirkooda kaga tashanayaan aayahooda iyo horumarinta dimuqraadiyadeeda Itoobiya. isagoo shacabka muuqaal baahiyaha kala hadlaya waxa uu yidhi iyadoo ay xisbiyada mucaaradka qaar ka mid aaminsan yihiin doorasho dhici karta inaysan jirin ayaanu ku adkaysanay in doorashada xilligeedu ku dhacdo diyaar garow ballaaran ah aanu ka sameynay. hase yeeshee cudurkan faafaha daran ee coronavirus ama COVID-19 ee dalka Itoobiya soo gaadhay adduunka intiisa kalena faraha ba'an ku haya ayaa nagu kalifay inaanu doorashada dib u dhigno. maruu la hadlayay ra'iisul wasaaruhu warbaahinta hadal ka soo yeeray deegaanka Tigreega waxa uu ku sheegay inay doorashada ay ku dhawaaqeen ay tahay mid maalmarsan dastuurka iyo sharciyada u degsan waddanka. waxa uu yidhi dastuurka dalka Itoobiya u yaala dhaqdhaqaaq kasta oo ka hor imaanaya oo ay tahay khalad aad u weyn ayaa xadgudub ku tahay shuruucda dalka iyo kan caalamiga intaba. sida uu dhigayo dastuurka dalka Itoobiya qodobkiisa 50aad faahfaahinayana awoodda iyo waajibaadka dowladda federaalka inaan dastuurka difaacno wax kasta oo ka hor imaanaya aanu ka hortagno diyaar ayaanu u nahay ayuu yidhi. deegaan si gaar ah isagoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu yidhi deegaan si gaar ah iskii u qabsan kara doorasho ma jirto. si kastaba ha ahaatee xisbi kasta oo siyaasadeed oo doonaya inuu xukunka siyaasadeed dalka u hanto waa inuu maraa waddo dalka iyo dadka dhibaato iyo burbur aanu horseedayn. waxa uu si adag u yidhi cid kasta oo doorasho aan sharciga waafaqsanayn inay qabato doonaysa isla markaana damacsan inay awoodda deegaan xoog ku qabsato dowladda federaalka wixii hadda ka dambeeya uma dulqaadanayso tallaabo kasta inaan qaadno diyaar ayaanu u nahay. halkaad warka aad ka dhageysanayseen waa shabakad wareedka Somali Modern Media.